munaasabaddan maanta lagu daahfuray kuliyadda barashada culumta saxaafadda oo ay hirgelisay jaamacadda Golis ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa waxaana ka soo qayb galay wasiir ku-xigeenka warfaafinta Cabdiwaaxid Cabdulqaadir Cabdiraxmaan mas'uuliyiin ka socday jaamacadda Golis iyo qaar ka mid ah qaybaha warbaahinta ka hawlgashay magaalada Hargeysa mas'uuliyiin ka socday jaamacadda Golis ayaa sharaxay muhiimadda ay kuliyaddan barashadeedu u leedahay suxufiyiinta waxa xaqiiqo ah oo maanta wadankeena aynu qof kasta oo ama kamarad hasito ama qalin hasito ama computer hasito ku shaqeeya saxaafad ama saxaafad meel ka soo gala dhibaatooyinka hortaagan kamid ah kuwa hortaagan kamid ah in markay u yartahay qofkaasi la leeyahay shahaado ma haysto waa wuxuu suuqa ka barta waa wuxuu xoog iyo feer iyo allah ku wado waa waxaanu etikskeeda ka soo bixi karin waa waxaanu mas-uul ka noqon karin saxaafadda eedna la daba socda yacni waxay ahayd dhibaato aan dareemi karayno oo waagii barye iyo gobolkii dhacaba saxaafaddu la seexatay la soo xoosa kaasi si loo haleeyo waxay jaamacadda Golis u tafaxaydatay bal inay iska dhaafto inay saxaafadda wax ka qabatee adduunka intay la xidhiidho ay programmo international oo accreditation Maraykan laga leeyahay oo ardayga Hargeysa jooga qofka professionalka hadduu writer yahay hadduu designer yahay hadduu TV yahay hadduu media yahay idilkeeda la isku daray inuu Maraykan shahaadadiisa qaadan karo keenaya kuliyadda maanta lagu aasaasay in ay saxaafaddu leedahay in wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelintu ay leedahay ay leeyihiin inta saxaafad baraysa oo aan ku soo dhaweynayno waxaan ugu kalifay inaanu aasaasno kuliyaddan markii aanu aragnay in badan in la leeyahay dadka daadaya ee saxaafadda ka shaqeeya inaan lahayn aqoontii iyo khibradii ay ugu adeegi lahaayeen bulshada maxamuud cabdi jaamac xuuto oo ka mid ah suxufiyiinta ka howlgala magaalada Hargeysa ayaa sheegay inay ka faa'iideysan doonaan kuliyaddan saxaafadda ay soo kordhisay jaamacadda Golis runtii marka hore sidaan wararka ku hayo oo aan ka mid ahaa dadka dalinayay waxaan ku talagalay jaamacadda Golis in ay class furi doonto oo ay suxufiyiintu ama dadka kale loogu talagalay barnaamijkan ka faa'iideysan doonaan laakiin way soo fududeen way soo dhaweeyeen waxay yiraahdeen online baa lagu baranayo qofkiisa waxa xafiiskiisa iska jooga ayuu programkan qaadanaya u baranaya runtii waxaan qabaa inay tahay fursad tii hore marka hore aan naawilay kasii wanaagsan oo fursad u ah qof kasta oo suxufiya oo aan haleelin inuu kilaasago inuu isagoo xafiiskiisa jooga ka faa'iideysan karo programkan wasiir ku-xigeenka warfaafinta Cabdiwaaxid Cabdulqaadir Cabdiraxmaan ayaa sheegay in suxufiyiintu ay kordhiyaan aqoonta ay bulshada ugu adeegaan isla markaana ay ka faa'iideystaan kuliyaddan barashada saxaafadda ee soo kordhisay jaamacadda Golis waxaan mahadcelinayaa jaamacadda Golis oo maanta fursadan qiimaha leh u soo bandhigtay daayirteenu inay ka faa'iideystaan si ay journalismka u bartaan runtii waan ku fahsanahay jaamacaddan kale xiriirka la yeeshay Indiana University of Pennsylvania runtii waa barnaamij loo baahnaa inagana taagay maantana loo baahan yahay fursadda qaaliga ay guryaheena inoogu timi inaynu ka faa'iidaysano waliba sida halkan laga sheegay waxaa online-ka lagu dhiganayaa qofku isagoo gurigiisa ama xafiiskiisa jooga ayuu halkaa computerkan ama laptopkan mutacid laga fisato wax badan lagu mashquulay inaynu xag waxbarashada uga faa'iidaysano runtii aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa Khalid Xabsi Kalsan TV Hargeysa